muwaadin ku soo dhawow cutubka 6 qaybtiisa 2 xeerdejinta baarlamaanka muwaadin hindisxeereed waxaa golaha hor keeni kara golaha wasiirada ugu yaraan 10 xildhibaan oo ka tirsan golaha shacabka ugu yaraan 10,000 oo muwaadin oo buuxiyo shuruudaha codbixinta golaha aqalka sare waxaa hindisxeereed u soo bandhigi kara 1 golaha wasiirada 2 ugu yaraan 1 senator 3 guddi kasta oo ka tirsan guddiyada aqalka sare muwaadin hindisxeereed kasta marka uu soo gaaray mid kamid ah golayaasha baarlamaanka waxa uu marayaa 3 aqrin oo kala duwan oo golo kasta ah iyadoo aqrinta koowaad uu aqrinayo wasiirka wasaaradda ay qusayso aqrinta labaad waxa golaha uu aqrinaya guddiga u abaaran hindisxeereedka aqrinta saddexaad waxa uu aqrinaya guddiga u abaaran hindisxeereedka iyagoo ku soo dhafaya talooyinkii la soo jeediyay intii lagu guda jiray dooda habraaca xeerdejinta labada aqal hindisxeereed ka bilowday golaha shacabka muwaadin markii hindisxeereed la hor keeno golaha shacabka goluhu wuxuu qaadi karaa 2 tallaabo midkood tallaabada koowaad inuu sidiisa ku ansixiyo ama wax ka bedelo kadibna uu gudbiyo golaha aqalka sare ee baarlamaanka tallaabada labaad inuu ku diido kuna wargeliyo hay'adda soo curisay iyo golaha aqalka sare isagoo raacinaya sababaha loo diiday muwaadin marka golaha aqalka sare uu soo gaaro hindisxeereed uu golaha shacabka soo gudbiyay waxa u furan inuu qaado mid kamid ah tallaabooyinka soo socda tallaabada koowaad inuu hindisahaasi u ansixiyo sida golaha shacabka uu soo gudbiyay oo aan waxba laga bedelin kadibna dib ugu diro golaha shacabka tallaabada labaad inuu wax ka bedel ku sameeyo kadibna uu dib ugu diro golaha shacabka tallaabada saddexaad inuu diido hindisxeereedka kadibna uu dib ugu diro golaha shacabka isagoo raacinaya sababaha diidmada muwaadin haddii golaha shacabka uu soo gaaray hindisxeereed oo uu ansixiyay golaha aqalka sare oo markii hore ka bilowday golaha shacabka iyadoo aan waxba laga bedelin wuxuu goluhu u gudbinayaa madaxweynaha si uu u saxiixo looguna soo saaro faafinta rasmiga ah marka golaha shacabka uu soo gaaro hindisxeereed oo uu golaha aqalka sare wax ka soo bedelay ama diiday waxa u furan in uu sameeyo tallaabooyinka soo socda tallaabada koowaad inuu u ogolaado wax ka bedelka ama diidmada una gudbiyo madaxweynaha si uu u saxiixo tallaabada labaad inuu diido isbedelka ama diidmada la sameeyay uuna ku buriyo go'aanka golaha aqalka sare aqaliyad 3/2 ee tirada guud ee xubnaha golaha shacabka kadibna uu u diro madaxweynaha si uu u saxiixo hindisxeereed ka bilowday golaha aqalka sare muwaadin marka golaha aqalka sare la hor keeno hindisxeereed oo golaha ka bilowday wuxuu qaadi karaa mid kamid ah tallaabooyinka soo socda tallaabada koowaad inuu sidiisa ku ansixiyo ama wax ka bedelo kadibna loo gudbiyo golaha shacabka tallaabada labaad inuu diido kuna wargeliyo golaha shacabka iyo curiyaha sababaha loo diiday hindisxeerka muwaadin marka golaha shacabka uu soo gaaro hindisxeereed uu golaha aqalka sare soo gudbiyay waxa u furan inuu qaado mid kamid ah tallaabooyinka soo socda tallaabada koowaad inuu hindisaha u ansixiyo sida golaha aqalka sare ugu soo gudbiyay oo aan waxba laga bedelin kadibna dib ugu diro golaha aqalka sare tallaabada labaad inuu wax ka bedel ku sameeyo kadibna dib ugu diro golaha aqalka sare tallaabada saddexaad inuu diido hindisaha xeerka kadibna uu dib ugu diro golaha aqalka sare isagoo raacinaya sababaha muwaadin haddii golaha aqalka sare uu ansixiyo hindisaha xeerka oo uu soo gudbiyo golaha shacabka hindisxeereedka waxa dib loogu celinayaa golaha aqalka sare si uu ugu diro madaxweynaha si uu u saxiixo looguna soo saaro faafinta rasmiga ah muwaadin haddii golaha aqalka sare uu soo gaaray hindisxeereed uu ansixiyay golaha aqalka sare oo markii hore ka bilowday golaha shacabka iyadoo aan waxba laga bedelin wuxuu goluhu u gudbinayaa madaxweynaha si uu u saxiixo looguna soo saaro faafinta rasmiga ah muwaadin haddii golaha shacabka uu wax ka bedelo ama diido hindisxeereed uu soo gudbiyo golaha aqalka sare waxa uu qaadayaa tallaabooyinka soo socda tallaabada koowaad inuu aqbalo wax ka bedelka ama diidmada una gudbiyo madaxweynaha si uu u saxiixo tallaabada labaad inuu diido wax ka bedelka ama diidmada iyadoo uu ku meelmarinayo 3/2 tirada guud ee xubnaha golaha kadibna u gudbiyo hindisaha xeerka madaxweynaha si uu u saxiixo